shirkan jaraa'id oo ay maanta magaalada Muqdisho ay ku qabatay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe ayaa waxa ay si kulul uga hadashay fal kufsi oo dhawaan degmada Afgoylo u geystay laba gabdhood oo 3 jir iyo 4 jir ah kuwaas oo hadda lagu dabiibayo mid kamid ah magaalada Muqdisho. waxay sheegtay gudoomiyaha inay aad ugu xuntahay falkan lagu kacay gabdhahan yaryar iyadoo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbatay in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta dawladda loo soo galiyo dadkii ka dambeeyay kufsiga loo geystay labadan gabdhood. waxay la tahay wardhafoor ku yaala gabdhaha Soomaaliyeed way hadleen munaasabada maanta oo ah kulankeena mid ka soo bilowday maalintii falkan xun uu dhacay oo guddi loo saaray ururka haweenka ka wakiil ah inay tagaan meeshii waxa ka dhaceen inay tagaan dhakhtarkii iyo inay xiriirin la sameeyaan dhammaan gabdhaha dawlad goboleedyada gobolada iyo degmooyinka inta waxa lagu jiray wada tashi iyo qaabkii loo wajihi lahaa dhibaatadan masiibadan qaran waa masiibo qaran oo lagu dhacday qaabkii haweenka Soomaaliyeed isugu diyaarin lahaayeen ka qaybgalka sidii looga hadli lahaa sidii loo garab istaagi lahaa familkii ama qoyskii ay sida gaarka ah ugu dhacday oo hooyo iyo aabbo iyo walaalo iyo ehel leh iyo sidii gabdhuhu ay u istaagi lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin dalka iyo dadka inay helaan runtii masiibadan qaran oo dhacday gabdhaha Soomaaliyeed waxay ka istaageen mowqif midaysan iyaga oo ka hadlaaya inaysan ahayn wax ummadda Soomaaliyeed ka suurooba sida caadada ahaan jirtay waa mashruuc horena waa loo sheegay mashruucaas oo ay wataan dad ajnabi ah nala diir ahayn nala ahayn maxaan ku raahdaa dhaqan nala diin ahayn oo soo galooti ah ayaa dalkeena waxay ka wadaan mashaariicdaasi waxay isugu jirtaa dhowr qayb waxay mataqaanaa soo gudbinaysaa oo ay dhigaysaa meelo sahlan oo ay dhalinyarada iyo dadka maxaan ku raahdaa ee aan garaadka badan lahayn ay ka isticmaali karaan waxaan la yiraahdo mandooriska dalkeena wuxuu u soo galaa si sharci darro ah wuxuu ku yimaadaa diyaaradaha wuxuu ku yimaadaa maraakiibta wuxuu ku yimaadaa baabuurta xuduudaha meel walba ayuu ka soo galaa badda meel walba ka soo galaa waxaas waa wax ku faafsan dalkeena oo meelaha daawooyinka lagu gado iyo meelaha dukaamada ah intaba laga heli karo oo ay dhalinyaradu si lacag aan badnayn ay ku soo qaadan karaan waayo mujtamac kasta marka la rabo in la baabi'iyo waxa la baabi'iyaa dhaqankiisa waxa la baabi'iyaa aqoontiisa iyo diintiisa waxa la baabi'iyaa damiirkiisa ayaa la baabi'iyaa waa qayb kamida mashaariicda loogu talagalay in Soomaaliya damiirkeeda lagu baabi'iyo oo loo caadeeyo in caruurta ay dhaleen ay waxaas foosha xun ay kula kacaan ma aha dhaqan aan leenahay ma aha wax Soomaali hore uga soo dhacay waa wax nagu cusub waa mashruuc soo galooti ah waa mid la rabo in lagu laayo jiritaankeena iyo kalgacalka iyo wada dhalashada ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa waa kuwa mashruuc kamid ah mashaariicda qaraxa oo kale wax badan ayaa Soomaaliya lagu tijaabiyay wax badan ayaa lagu la kacay ummadda Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeedna dhibaato fara badan ayay u soo joogtay intii ay jirtay ee dalkan uu burburay maalinba maalin ayay waxay ku jireen jab iyo hoog barakac iyo qax dhibaato haddana waxa ugu soo xiga in caruurtii oo ay ahayd waajib waalidku say uga fikirayaan inuu dirisku uga fikiro oo ay uga fikiraan macallimiintu oo ay uga fikiraan cid kasta oo mas'uuliyad wadareed ahayd ummadda Soomaaliyeed dhaqankeeda in la dhowro saqiirada la dhowro oo la xanaaneeyo oo qofkii arkaa uu waalidkii noqdo oo hadduu qaldan yahay uu soo qabto oo hadduu dhunsan yahay uu soo qabto oo haddii hooyadii ayna keeni karin inay ilmaheeda gacanta ku haysato oo ay raadinayso qutulyoonkoodii dariska ayaa ka caawina qof kasta oo Soomaali ah waa mas'uuliyad saaran cunuga Soomaaliyeed inuu ilaaliyo arrintan sida gabdhuhu u sheegeen adduunku wuxuu ka cabaadayaa oo maanta toole meel walba la taagan yahay coronavirus waxaan u malaynayaa inuu la mid yahay waxaan dhihi karaa waa dhigiisa sababta ay tahay gabdho yaryar oo maxaan ku dhihi lahaay 3 jir iyo 4 jir ah in niman kufsadaan oo haweystaan waa wax argagax leh waxaad moodaa ifka korkiisa inuu qiyaamii ka soo baxay Ibrahim Xaaji Yusuf telefishinka dalka Muqdisho.